muuqaalkan anshaxumada ah ayaa baraha bulshada qabsaday kadib markii dhalinyarada Soomaaliyeed lagu arkay ayagoo masaajid ku jira iska soo duubaya muuqaal anshaxuma ah hees ay saaran tahay bil Ramadaanna ay tahay sidoo kalena surwaalada iyo macwiisaha siibanayo kuwaasoo heesta waxyaabaha ay ka turjumayso sameeynayo xubinta taranka ayaa ay xanuunayso ayaa heesta lagu leeyahay ayagana ficilkii ay sameynayaan muuqaalo badan baraha bulshada ee la soo dhigay qaasatan TikTok-ga kumanaan muuqaal ay iska soo duubeen dhalinyar badan oo kala duwan oo Soomaaliyeed badankood ayaa ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ficiladaana iyo ficilo ka xun way soo laabteen taliyaha gobolka Banaadir ee booliiska Soomaaliyeed ayaa hadda ku raad jooga kaasoo waliba ka codsanaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay la raadiyaan degmada iyo sidoo kale meesha ay degan yihiin dhalinyaradan Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa dhalinyarada badan ee muuqaalada iska soo duuba inay ka bixiyaan baraha bulshada sidoo kalena kuwaana qaataan booliiskan waxa uu rajaynayaa in baraha bulshada si fiican ula socdaan ay sidoo kale ilaaliyaan caruurta muuqaalada ay soo dhigaan waa inay fiiriyaan maadaama waalidkood ay ilaalin waayeen muuqaalo anshaxuma ah ay arkaysaa wiil iyo gabar iska soo duubayo oo waliba dhaqan iyo diinba sad iyo raadba aan ku lahayn kuwaasoo baraha bulshada waliba soo dhigayo ku soo celcelinayo waalid cishta malahan oo baraha bulshada ku jiro oo daawada qaarkoodna uma noolo waalid ama sa waalidkood ma joogaanba meesha ay ku nool yihiin waxaan rajaynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhaqankooda iyo diintooda muuqaalkan hadduu ku soo gaaray ha iloobin inaad subscribe noo taabatid channelka sidoo kalena muuqaalka aad like saartid si oo u gaaro dadka uu quseeyo ee Soomaaliyeed ee muuqaaladan ka xumaaday sidoo kalena in dhalinyarada Soomaaliyeedna ay u noqoto wacyi